Xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdilaahi Xasan Samaale ayaa saaka soo kormeeray xarunta cusub ee loo dhisayo degmada dowladda hoose ee degmada Togwajaale iyo xarumo kale oo dowladda dhexe ka fulinayso isla degmadaasi. Mashaariicdan ay dowladda dhexe ka fulinayso ayaa kala ah xarunta dabdamiska, xarunta CID-da, waxaana ka warbixinaya mashaariicdan iyo sida ay u socdaan xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdilaahi Xasan Samaale, waxaana kamid ahaa hadaladiisii sida tan. halkan waa xaruntii guud ee maamulka dowladda hoose waa kan dhismaheedii aad arkaysaan kulley wigiiba mar baan soo marnaan kormeer ku samaynaa dee si fiican oo habsami ayay u socotaa waa taa buuxintii iyo shubkii guudna uu dhamaystirmay oo foundationkii baa imika dhamaystirmay. halkan waxaad ku aragtaa waa xarunta dandamiska ee degmada Togwajaale yeelan doonta mustaqbalka. masaajidkiina waa kan isaguna waa kolka jinkadsaarkii uu taagan yahay. halka laamaha dawladda oo dhan ayaan ugu talagalay sidii horeba wasiirka arrimaha guduhu dhagax dhigay dawladdu wasiirada isku yimaadeen saad la socotaan horeba media aad uga aragteen TV-yada uga daawateen. halkan waxa isku yimaanayeen laamaha dawladda oo dhan hadday tahay garsoorka, dandamiska, maamulka dawladda hoose, sirdoonka qaranka, laamihii kale dawladda ee sida hay'adaha kala duwan insha Allah kulli waa iyaguna qorshe ku jiraan iyagana loo diyaariyo. marka insha Allah kulli si fiican bay hawshan u socotaa. kulli sida injineerku uu noo sheegay qorshihiisu sidii heshiisku ahaa ee ku talagalkii aanu dhiganay uu xilliga dhamaystirkiisuna noqon. Hibaaqi Suufa Maxamuud, Sham News TV, Wajaale.